justify waa u qiildays ama u qiil bixin. Tusaale ahaan, you cannot justify discrimination. You cannot justify discrimination. Midabta koor ama kala sooc uma qiildayi kartid ama qiil uma helaysid, uma qiil bixin kartid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhowaada mar kale. Welcome back. Haddii aad nagu cusub tahayna waxaanu ku leenahay welcome. Fadlan ha iloobin in aad tiraahdo like, share iyo subscribe. Caawa maxaan idin hayaa? Caawa cashirka aan idin hayo waxa weeye the most commonly used verbs in English. Ficilada loogu isticmaalka badan yahay luuqada ingiriiska. Ficilada in aad barato ama verbska aad iyo aad ayay muhiim u tahay marka aad luuqada baranayso, sababtoo ah the more verbs you know, the easier it becomes for you to build a sentence. Ficilada aad taqaano marka ay sii bataanba waxaa kuu sii fududaanaysa in aad jumlad dhisto. Markaasi ficiladii oo inoo bilowday waa kuwana. Ereyga ugu horeeya waxa weeye remember. Remember waa xasuuso. Xasuuso, remember waa ficil, verb weeyaan. Haddii la rabo magac ama noun in laga dhigo waxa uu noqonayaa remembrance. Remembrance, xasuus. Consider. Consider waa tixgeli, waa ficil tixgeli. Haddii la rabo noun ama magac in laga dhigo wuxuu noqonayaa consideration. Consideration, tixgelin. Freeze. Freeze waa baraf ka dhigis weeyaan. Marka biyaha faranjeerka inta la geliyo ay dhagaxa noqonayaan, baraf ayaa laga dhigayaa. Markaasi waa freeze, waa baraf ka dhigid. Reach. Reach waa laacis ama gaadhis. Reach. Erey kale ayaa jira oo isku dhawaaq yihiin laakiin dhigaalka way ku kala duwan yihiin, oo ah reach, oo ah macnihiisa noqonaya qani ama taajir. Marka labadaasi erey ha isku khaldin. Dhawaaqooda waa isku mid laakiin dhigaalkooda wuu kala duwan yahay sida loo qoro. Fold. Fold waa laalaabis, sida dharka oo kale marka la laalaabayo ama warqadaha la laalaabayo waa fold, laalaab. Ereyadani qaar ka mid ah waxaan samayn doonaa jumlado ayaan gelin doonaa oo tusaale ah. Qaarka kale waxaan doonayaa in aad adiga isku daydo oo aad jumlad geliso. Hoos meesha commentiga iigu soo qor. Waxaan isku dayi doonaa in aan akhriyo sida aad jumladda aad u dhisayso ama aad ereyga jumladda u gelinayso. Khaladaad haddii aan ku arkana waan sixi doonaa. Marka hoos erayaashaasi aan ka tegay aana jumladda gelinin, fadlan commentiga ku soo qor adiga oo jumlad gelinaya. Decide. Decide waa go'aansasho, go'aan qaadasho, waa ficil, verb. Decide, go'aanso, go'aansi ama go'aanso. Magac haddii laga dhigo decision ayuu noqonayaa. Decision. Fail. Fail waa ku dhicis, sida imtixaan ama doorasho. Sidoo kale ereygan waxaa lagu fasiri karaa ku guuldaraysi. Ku guuldaraysi. Fail. Fall. Fall ereygan waa dhicis ama waa kufid. Marka ficil weeye. Fall waa dhicis ama kufid. Sidoo kale ereygan macno kalena wuu leeyahay oo xilliga guga ama xilliga uu roobka da'o, fall ayaa la yidhaahdaa xilligaasna. Marka sidaas u kala baro. Push. Push waa riix. Pull. Pull waa jiid. Provide. Provide waa bixin. Generate. Generate waa soo saaris. There are machines that generate electricity. There are machines that generate electricity. Waxaa jira mashiino korontada soo saara. Prepare.
prepare waa diyaargarow. Prepare isdiyaari, diyaargarow. You have to prepare yourself in order for you to pass the exam. Waa in aad isdiyaarisaa ama naftaada aad diyaarisaa si aad imtixaanka u baasto. Hurt, hurt. I hurt my knee. I hurt my knee. Waxa aan iska dhaawacay jilibka. Impress, impress waa yacni u bogis ama la dhicis ama ka helid. I am impressed with your progress. I am impressed with your progress. Waxa aan la dhacay ama aan ka helay horumarkaada. Indicate, indicate waa muuji, waa ficil ahaan oo kale muuji. Indicate. Noun ama magac haddii laga dhigo wuxuu noqonayaa indication. Indication muujin ayuu noqonayaa markaas. Invest, invest waa maalgeli. Invest, maalgeli. Haddii noun ama magac laga dhigo wuxuu noqonayaa investment. Investment maalgashi. Measure, measure waa cabir ama cabiris. Fit, fit waa la ekaansho. Tusaale ahaan, this t-shirt does not fit me. This t-shirt does not fit me. Funaanadani ilama eko. Hop, hop waa hal lug ku boodbood ama hal lug ku boodis. Marka lug uu dhaawac kaa gaaro oo hal lug keliya aad ku boodboodayso, eraygan ayaa la isticmaali karaa hop. Tusaale ahaan, he tried to hop on his good leg. Waxa uu isku dayay in uu ku boodo lugtiisa fiican. Perform, perform waa qabasho sida hawl oo kale ama shaqadaada marka aad qabanayso. Eraygan waa la isticmaalaa perform. Sidoo kale eraygan macno kalena wuu leeyahay oo marka fanaaniinta ay ciyaarayaan ama ay heesayaan waa la isticmaalaa. Tusaale ahaan, who do you want to perform at your wedding? Fanaankee ama qofkee kuma ayaa doonaysaa in uu arooskaada ka ciyaaro ama uu ka heeso. Feed, feed waa quudin sida caruurta yaryar ama dhallaanka oo kale marka la quudinayo. Fight, fight waa dagaal. Feel, feel dareen. Forbid, forbid waa ka xarimid ama ka xaaraantimayn. Fly, fly duulis. Grind, grind waa shiidis. Inform, inform wargeli waa wargelin. Inform. Jog, jog waa ruclayn ama orod. It is my routine to jog in the morning. Waxaad dhihi kartaa it is my routine to jog in the morning. Jadwalkayga ayay ku jirtaa in aan subaxii rucleeyo. Continue, continue sii wadis ama sii wad. Control, control waa xakamayn ama xakamee. Fry, fry waa shiilid. Ignore, ignore waa iska indha tirid ama iska dhega tirid. Tusaale ahaan, he ignored his teacher's advice. Waxa uu iska dhega tiray ama iska indha tiray macallinkiisa waanadiisa. Justify waa u qiildays ama u qiilbixin. Tusaale ahaan, you cannot justify discrimination. You cannot justify discrimination. Midabta koor ama kala sooc
uma qiildayi kartid ama qiil uma helaysid, uma qiil bixin kartid. Protect, protect, protect waa ilaalin ama difaac. cashirkii maanta intaas aynoo joogo, inta aynu ku kulmi doono cashirkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.